السلام عليكم. waxaan bilaabeynaa ama baan ka hadlaynaa hordhac yar oo ku saabsan aljabra. kadibna waxaan soo jeedin doonaa casharo taxane ah oo ku saabsan maadada xisaabta ee loo yaqaano aljabra. haddii aan ku bilowno, marar badan waxaa laga yaabaa inaad aragtay amaba haddaad xisaab dhigatay amaba aad buug xisaab aad furtay, marar badan waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay x amaba y amaba z ama z, ama waxaa laga yaabaa theta inaad ku aragtay. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso marka ay leeyihiin x haddii lagu daro halka waaba garanaya waa lambar, laakiin xtan maxay u taaganta? haddii aan tusaale soo qaadano, marka waxaan isku dayaynaa inaan sharaxno x waxa ay tahay. haddii aan tusaale yar soo qaadano, kala soo qaad maqaayad baad tagtay, deetana cuntaa lagu keenay, waiter ama kabalyeeri, qofba sida u yaqaano ayaa kuu keenay. hadhow markii uu lacagta kaa qaadayaa lacagtii waxaad ugu dartay bakshiish, waxaan anigu aqaano, qofba si kale inuu yaqaano inuu taqaanaan baa laga yaabaa. waa wax yarka ee dadka shaqaalaha loo raaciyo markii ay kuu qabtaan shaqo mucayan ah. marka kaba soo qaad in kabalyeerigaas ama waiterkaas uu ku shaqeeyo $10 maalinkii. haddii aan dhahno marka maanta cuntu adiga kuu keenay, waxaadna siisay $1 ayaa waxaad u siisay maxay? waxaad u siisay bakshiis ahaan. marka halkan $1 ee aad siisay, waxaa laga yaabaa inuu qof kala siiyo $2, mid kale inuu siiyaa laga yaabaa $0.5, mid kale waxaa laga yaabaa inuu siiyo waxba $0. marka haddii aan marka dhahno 10kiisii mushaarka ahaa oo uu maalinkii qaadanayay, waxaa loogu daraa bakshiish yaa u soo raaco. bakshiiskaasita marka waxaan dhehaynaa wuxuu ku darsanayaa bakshiish bakshiishkan marka waa wax isbeddelaya sidaan xaggan ku aragnay. mar waxaa laga yaabaa qof inuu $1 siiyo, mar laba inuu siiyo. marka maalin waxaa laga yaabaa inuu soo gala maxay? maalin waxaa laga yaabaa inay soo gasho $2, maalin waxaa laga yaabaa inay $10 kale soo gasho, maalin waxaa laga yaabaa inay $20 soo gasho, maalin waxaa laga yaabaa inay soo gasho $30, marna waxaa laga yaabaa inay waxba soo gelin. marka kan dhacdhaca ninkan soo galaayo waa wax isbeddelaya. marka waxaas weeyaan waxa ay ku magacaabaan variable, afka Englishka lagu yiraah variable. marka waxaan dhihi karnaa ninkan waxaa soo galo $10 lagu daray b oo u taagan maxay? bakshiishka, amaba $10 lagu daray x oo u taagan bakshiishka, oo ah wax isbeddelaya ayaa soo gala maalinkii. dakhligiisa maalinkii waa intaas. marka variable halkan ayuu ka yimid, carabigana mutaqayir baa lagu dhahaa. wax isbeddelaya wayaan, shay isbeddelaayo wayaan af Soomaaligana. inkastoo maadooyinka hore xisaabta, buugta hore xisaabta dowladda hore ay ka tagtay magacyo adag ba isticmaalaan. aniga hadda magaca ay isticmaalayaan ma xasuusto, laakiin saasaan dhihi karnaa. haddii marka aan idhaahno aan tusaale kaleeto aan ka bixin halkan, waxaan leenahay 10 lagu daray x. haddii ay x la eg tahay 10 lagu daray x maxay noqonaysaa? amaba ay la eg tahay haddii x ay tahay 5, waxay noqonaysaa 10 lagu daray 5 oo ah 15. haddii ay x la eg tahay -5 ama -5 maxay noqonaysaa? 10 lagu daray x. 10 lagu daray x waxay noqonaysaa 10 lagu daray
minus 5 minus iyo plus hadday isku dhacaan sida xisaabta taqaano waxaa ku soo baxayo minus marka waxay noqonaysaa 10 laga jaray 5 waxaana ku soo baxayo 5 marka waxaan rajeynayaa xarfahan haddaad aragto inaadan ku mashquulin amaba aadan isweydiin waxa ay u taagan yihiin ee aad ka soo qaado wax aan la aqoonin oo la raadinayo sababta aan ugu bilaabay hordhacaan waxa weeyaan maadada aljabrada waa maado aad loo isticmaalo qaacidooyin amaba equations fara badan oo sida x iyo y iyo z iyo theta intaba leh marka duruusta ku xigta waxaan bilaabeynaa inaan sharaxno sida loo xaliyo mucaadalo intaan kasii sareyso sida tan hadda aan meeshan ku sharaxnay oo kaleeto ayaan kaga sii dhaqaaqeynaa aanan xalinayna mucaadalaad kale